barasaabka gobolka Saraar Axmed Cali Nuur iyo xubno kamida Sulaadiinta iyo Cuqaasha gobolka Saraar ayaa maanta ku dhawaaqay inay ku guuleysteen qabashada ninkii gacan ku dhiglaha ahaa ee dilka u geystay xogayihii komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Saraar oo toddobaadkii hore lagu dilay deegaanka oo ka tirsan gobolka Saraar. Shirkan jaraa'id ee barasaabka iyo xubnaha Sulaadiinta iyo Cuqaasha isugu jira ay qabteen oo ka dhacay hoteelka Ishacaynaba ayaa waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in dadaal fara badan oo ay sameeyeen ardaagii uu ka dhashay gacan ku dhiglahaasi iyo xukuumadda Soomaaliland lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo gacan ku dhiglihii dilka ka geystay deegaankaasi oo waxaana barasaabka gobolka Saraar Axmed Cali Nuur si weyn ugu mahadnaqay Suldaan Saciid Yuusuf Xaaji Ducaale iyo cuqaal uu kamid yahay Chief Caaqil Cabdirashiid Ducaale Cilmi kuwaas oo tilmaamay inay gacan weyn ka geysteen sidii loo soo qaban lahaa gacan ku dhiglahaasi. shir saxaafadeedkan maanta waxaan u qabanay run ahaantii guushii shalay u soo hoyatay Soomaaliland guud ahaan gaar ahaanna gobolka Saraar iyo gobolka Sanaag oo ahaa guushaasi waxay soo hoyatay shalay markii qaraabadii iyo eheladii iyo reerkii uu ka dhashay ay gacanta ku soo dhigeen ninkaasi iyagoo maalmo idin daba jibinay run ahaantii habeena idin soconayay habeen iyo maalinba waa socon jireen dawladuna runtii aad iyo aad waxay gacan ka siisay dhinaca ciidamada booliiska oo iyaguna inta qolobo meel ay ku hagaagtay raadcada faraha badan ee ciidamada booliisku ay galeen iyo eheladii uu ka soo jeeday ay galeen run ahaantii waxa ay keentay culaad dheeraan lahayd iyo dhibaato dhici lahayd inay intiiba baajiso muddo 7 casho ah khamiistii bay falku dhacay inta waan daba soconay aniga Cuqaasha reerka iyo waxgaradka iyo eheladayada dhami insha Allah waxa weeye alxamdulillah rabbil caalamiin xalay maghrib ka daayeen ku guuleysanayaan gacanta ku soo dhigno annaga soo qabanay markii aanu qabanay waxaan ku rajinay xukuumadda hadda wuxuu ku jiraa gacanta xukuumadda taladiisuna wuxuu taalaa reerkii aanu qabanayno gacan ku dhiiglihii 7 cisho ka hor maanta 7 cisho ka hor ku dilay degmada Oog Cabdi Aadan Shaqaf oo ahaa nin weyn oo waayeel ah oo waxgarad ah ayaa maanta aanu halkan ku soo qabanay gacanta ku sognay xalay fiidkii degmada Huluul intaas oo cuqaal iyo waxgarad baa ku baxay intaas oo dadaba meeshu la galbo way ka soo saareen waxaan kaloo ammaan u jeedinayaa qoyskii uu ahaa marxuumku oo iyaguna sabir la yimi oo aan wax gacan geysanin waxaan leeyahay reer Soomaaliland meel ay joogaanba ha ku daydeen jaamac boodacade TV qaranka Soomaaliland aynaba